I was the high-ranking person in Hargeisa. Therefore, it was necessary those commanders to consult with me and to have directions from myself. As you know, the top person in the area of conflict should give the last okay. Yes, I give this okay. waxaan ahaa qofkii ugu darajada sareeyay ee joogay Hargeysa sida darteed waxa laga maarmaan noqotay in abaanduulayaasha ama taliyayaashu ay ila tashadaan isla markaana ay iga helaan tilmaamaha sida aad og tahay qofka ugu sareeya dhulka colaaduhu ay ka socdaan ay waajib tahay inuu bixiyo okayda ugu dambaysa ha aniguna waan bixiyay General Mohamed Ali Samatar oo waranayay idaacadda BBC laanteeda Focus on Africa sanadkii 1989 haddii uu maalinta Ali Samatar ahaa sarkaalkii ama mas'uulkii ugu sarreeyay ee Hargeysa joogay isla markaana uu bixiyay okayda sida uu hadalka u dhigay General Ali Samatar waxa la weydiinayaa oo kaliya ama maxkamaddu weydiinaysaa awoodii uu maalinta lahaa iyo sidii uu isticmaalay haddii uu maalinta ahaa Ali Samatar sarkaalkii ugu sarreeyay oo bixiyay amarka duqaynta waqtigaaba uu ahaa qabiilka laga tirada badan yahay ama la haybsooco taasina kama joojinayn amarkii duqaynta ee ay ku nafwaayeen kumanaanka qof ee u badnaa carruurta iyo dumarka aan waxba galabsan kumanaan kalena ay ku naafoodeen boqolaal kun oo kalena ay ku barakaceen waxa kale oo xaqiiqo ah in dadka difaacaya ama u doodaya ay u badan yihiin dadkii markii horeba dawladdii uu madaxda ka ahaa ee Soomaaliya ku barbartaagnaa dulmigii iyo dhibaatadii ay shacabkeeda u geysatay waxaase aad macquul u noqon lahayd inay ku doodaan inuu difaacayay dawladdiisa ama dalkiisa halka ay dadka ku majra habaabinayaan qabyaalad iyo dood aad u raqiis ah si kastaba ha ahaatee waxaa doodan lagu difaacayo Ali Samatar ayna tusaysaa caqli xumada ay Soomaaliya la deglaadahay muddada 20 sano ka badan ama se ku dhow marka lagu daro dacwadda aan macnaha iyo ujeedada ay ku salaysan tahay la garanayn ee Nairobi laga soo oogay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Kenya Mudane Faarax Macalin waxa kale oo ayna baraysaa halka ay taalo qabyaaladda teeda ugu qarmoon ee Soomaalida lagu cambaareeyo isla markaana badbay burburka iyo halaaga ka socda ee ay ilaa hadda la deglaadahay